kulanti wacan daawadayaal halkani waa Dugaal TV ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo kuwa caalamka ee xilligan ugu xiisaha badan qaybtan hadduu eebayd waxaan idinku soo gudbin doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxa uu magaalada Baydhabo kaga dhawaaqay dagaal ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab isagoo maanta ku calaacalay in Al-Shabaab ay ka haystaan deegaano aad u tiro badan oo ka mid ah gobolada ay ka kooban tahay dowlad goboleedkaasi waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kaalmo ciidan weydiistay dowladda Mareykanka isagoo dhawaan la filayo inuu kulan la qaato wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka qodobada ay ka wada hadli doonaan idin soo gudbin doonaa dowlad goboleedka Puntland waxa uu magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ka soo bixiyay qaraxyo aad u waaweyn haddaba qaraxyadaasi maxay ahaayeen barnaamijka aad ku daawan doontaan saaxiibayaal balse aan ku bilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxa uu maamulada degmooyinka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu faray in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanadooda isagoo khudbad ka jeediyay shir Baydhabo uga furmay gudoomiyaasha degmooyinka gobolada ay ka kooban tahay maamulka Koonfur Galbeed waxa uu sheegay in Al-Shabaab inta badan degmooyinka ay godoomiyeen isla markaasna wax laga xumaado ay tahay in meel baabuur looga imaan karo laga soo raaco diyaarad sida uu sheegay hadalkan dhawaan uu ka jeediyay shirka uga furmay magaalada Baydhabo waxa uu ku yiri iyadoo aad kaashanaysaan ciidanka xooga iyo shacabka deegaanka in la bilaabo howlgallo deegaanada go'doodsan si la mid ah howlgallada ka socda deegaano uu sheegay in ay ka tirsan yihiin maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle shirka uu furmay gudoomiyaasha degmooyinka gobolada Koonfur Galbeed ayaa ku soo aadaya xilli howlgallo iyo abaabulo ciidan oo ka dhan Al-Shabaab ay ka socdaan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud sidoo kalena madaxweynaha waxa uu ku dhawaaqay in deegaanada Koonfur Galbeed sidaasi si la mid ah ay bilaabaan howlgallo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab oo sida hadalku u dhigay markaan haddii aanu eegno Puntland ciidamada booliska gobolka Bari ayaa soo bandhigay walxaha qarxa kuwaasi oo laga soo arooriyay gudaha magaalada Boosaaso ee caasimadda Amaaniraad ee caasimadda gobolka Bari war ka soo baxay taliska booliska gobolka Bari ayaa lagu sheegay in booliska oo kaashanaya hay'adda NBA loo soo gaabiyo ay walxahan qarxa ka soo saareen magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda saakana la burburiyay dadka magaaladaasi ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaaqa jug weyn oo laga maqlay magaalada xaafadaha ay ka kooban tahay taliskana qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay taliska qaybta booliska gobolka Bari iyo hay'adda loo soo gaabiyo magaceeda NBA ayaa soo bandhigay burburinta waxyaabaha qarxa kuwaasi oo laga soo ururiyay magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda booliska gobolka Bari ayaa intaasi ku daray in walxahan si gaar ah boolisku uga mahadceliyay hay'adda NBA iyo shacabka reer Boosaaso oo qayb ka ah xogta lagu ururiyay walxahani qarxa sidoo kale waxa la sheegay in walxahani qarxa ay ka dambeeyeen dagaalkii ku dhaxmaray magaalada Boosaaso ciidamada taabacsan maamulka Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walxaha qarxa oo isugu jira bambooyin iyo hubka culus ayaa la rumaysan yahay inay yihiin haraadigii dagaaladii ka dhacay bisha December ee sanadkii 2021 magaalada Boosaaso dagaaladan ayaa u dhaxeeyay ciidanka daraawiishta Puntland iyo sidoo kale ciidan la sheegay in ay ka amar qaadanayeen dowladda federaalka Soomaaliya waxaana uu ka dhashay kadib markii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu xilka qaadis ku sameeyay agaasimaha hay'adda ciidanka ee loo soo gaabiyo BSF Maxamuud Cismaan Diyaano oo la rumaysan yahay in xiriir dhow ula lahaa madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa la filayaa dhawaan inuu la kulmo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka oo la sheegay in uu ka dalbaday in saanad ciidan ama hub ay ka garabsiiyaan dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in dagaal kula jirto dagaalamayaasha Al-Shabaab wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegtay in madaxweynaha Soomaaliya iyo xogayaha difaaca Mareykanka ay wada qaadan doonaan kulanka laba geesoodka wasaaradda gaashaandhigga oo war kooban soo saartay waxay sheegtay in kulankan uu yahay mid lagu xoojinayo xiriirka laba geesoodka ee labadan dal ka dhaxeeya Mareykanka ayaa saaxiibka ugu dhow Soomaaliya xilligan ka taageeraya dhinaca amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab xilli dowladii hore ee Soomaaliya ama hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xiriirka ula lahaa Mareykanku aad u liitay wuxuu hadda qorsheenayaa inuu balaariyo joogitaankiisa Soomaaliya iyadoo la filayo inuu ciidamo dheeraad u soo diro dalka Soomaaliya dhawaan Mareykanka ayaa dib u soo cusboonaysiiyay howlgallada cirka ee lagu la dagaalamayo dagaalamayaasha Al-Shabaab xogii ugu dambeeyay ee aad ku daawanayseen barnaamijkeena Dugaal TV-na waa naginta